ها ها magacaygu aadan cali axmed waxaana guddoomiyaha golaha sultaneed beesha ama hoosaan beesha galbaris waxaan rabaa inaan wax ka yar arrimihii shalay ka dhex buuna asoocawilaan ku sheegay iyadoo faahfaahsan laakiin anagoo soo gaabina waxaa shalay buuna ka dhacay waxaas annaga aan isku waafaqsanna ma aha wax koox ay wadata oo Nairobi laga soo aabulay waxaan u aragnaa inay tolka dan uga jirin waxaan u socon tolka ay qaybiyaan marka waxaan rabaa inaan idin sheegno bulshada reer wajar guud ahaan waxa shalay meesha ka dhacay wax tolka asba oo isku waafaqsan ma aha waayo nidaamka dhaqanka Soomaaliga maamulka tolka waxa hogaaminaya suldaan ma ogeyn nin aniga jeeman dhax oo aqoon toleed iyo aqoon dalad aan haysan ma aha marka taasaan rabnaa inaan dadka u sheegno waxa shalay buuna laga suubiyay wax tolka dhan aswaata wax ay wata ma wax koox ay wadata taasina qof baa la soo saaray hadda kor oo suldaanka soo magacaabay ayaan qof kale keenay marka taas waxay tuseen in tolka la kala qaybi isku didana nidaam ma ogeyn ninka asaga shabeelo anaga ninka juraan galbaris way wax shakhsi asaga baari on didana ma aha haddii isku waayo waxaan eri wali waa isku noqon talahan talada aan isku waafaqno haddii asaga ku soo baxana oo suldaanka oo hogaamina annaga ogol leh haddoo nidaam isku soo noqono way labada wiil annaga way noo sameeyeen waxaan isku diidana waxa waaye habka la isticmaala oo dadka loo qaybina marka taas ma aha ninkaasaan diidana ma aha waxaan diidanahay dadka hadda oo dhinac ka imaado oo arintan taas waxaan arkay in tolkiga isku kala taga marka haddii nidaam la isku waafaqsan aan isku imaado oo suldaanka aan hogaamina raali baan kuna waa Daawud Maxamed Daawud Goojan ku magac dheer arrimahan raba inaan ka hadlo waa arrimadan tolka ah waxaa jira tolka wuxuu leeyahay suldaan ajuuraan ahaan suldaan baa leedahay suldaankii ugaasi uu leeyahay oo laga dambeeyo oo reerka ay ka dambeeyaan oo lagu tashtay oo alwaba hor jiray oo haddana jira suldaankii intuusan ninkaas Cabdiqaadir Nuur Cusmaan intaan la soo bixinin halkaan hadduu suldaankii degan yahay reeraha waa aaday gaari buu qaatay waa tagay taariikh 4 bisha 9aad buunu tagay la tashi buu la sameeyay odayaashii kale oo ka haray oo dheesha meesha degan la tashi buu la sameeyay waxa la yiri adaan kugu kalsoonahay noo soo bixi waa lagu faatax martay uu soo noqday gudidiisu la tashtay taariikh baa la sameeyay waa la baxay suldaanka ninku arko dadka inuu hogaamin karay tolkan oo maanta asagu iyo kaligiiba ma ahan ee wixii la fikiraado ama oo asaga la socday oo odayaasheed waxay arkeen inuu ninkii tolka ninkan uu hogaamin karayo oo tolka kala hagi karayo Cabdiqaadir Nuur Cusmaan buu magacaabay arrinka halkaas ku dhamaaday tolkina halkaas lagu qaatay arrin baa ka daba timid marka adduunka mucaarad ma daayo suldaan ma jiro ama ilaahay baa wala mucaaraday oo nin baaban tukanayoo salaad ilaahay diido meesha iska bareegaya mucaarad buu ka mid yahay mucaaradka ilaahay buu soo kaama marka mucaarad baa shalay yimid oo soo laba kacliyay oo arrimahan aan goobjoog u ahayn oo hawshan loo yeeray oo diiday oo ay rabaan tolki sidii hore ay ku lumiyeen ay wax ku wadaan haddana ay ku wadaan sidii buuna ay shalay la tagay halkaana laga bilaabay arrimahaas halkaan dad ma keenin dadkii tolki intuu waa degan yahay la tashi ma samaynin gawaaridayna dhaafay baanu aragnay warxagee socotaan buunana socna buunadii waa la tagay hal la tagay waxa la yiri wixii suldaan kuma kalsoonin suldaanka tolkoo dhan anaga dheel hadii ajuuraanka la yiraahdo waa beela way beel Galbaris la yiraahdo kursigaas markaa raadsanaysay beelaha ma ahna kuwa kale inta ka sii badan oo ajuuraanka adeecay oo suldaanka la qaabilay oo taladiisa lagu hoggaansan ma ahna koox ma ahan niman baa soo istaago Nairobi ka yimid oo yiraahdo anagu Jeeman baanu wadanaayo reer Nairobi la yiraahdayo halkaas aan fadhinaayo wixii suldaan ku jira anaga suldaanka ku dhawaaqay anaga hawshan oo ma qalantay howl baynu cusboonin hadda wadnaa nin baa wadna ninkaas anaga nin aan hore faataxda laga marto oo laga bundubtay midkaan hadda iyagu wadaan tolka waaye laakiin lagu ma bunduban horta wax in lagu bundubtaa la rabaa
annaga hadda wixii ay shalay sheegeen waanu arkaynay tolka hore ay u baabiyeen 50 sano ay tolka saan yeeleen nimankan oo yaa naga qabta oo suldaanka loo caleema saaray hawshan inuu dalka ka qabto hawshu bay shalay cusboonaysi 50 sano tolka sida yeeleen bay haddana shalay meesha la tageen raalli kuma nihin wax soconayana ma ahan suldaanki iyo wixiina waa baalmareen nimanka ayaga haddaan bay soo noqon suldaanka ku soo noqon wixii ay sameeyeen aan ka sumeyn xaran waa la haysta tolki ba haysta bismillah kwa majina naitwa Haji Ntalo. Ningetaka kuongeza vile mwenyekiti ya Sultanate aliongea. Vile inajulikana katika jamii ya Wasomali, mtu anaitwa sultan ndio kwa kimila, kidesturi na kwa utaratibu ya jamii. Sultan ndio yule mtu mkubwa katika jamii. Sultan, sisi ni sultanate, mimi moja wapo ya sultanate. Sultan tarehe 4 mwezi wa 9 alikuwa Buna baada ya mavutano marefu. Kawaida watu wakishikana wavutane, sultani ndio alisuluhisha mambo ya siasa, mambo ya candidate wawili, na sultan na sultanati yake na wazee wa konge ya jamii walikuwa Buna tarehe 4 na wakatoa Abdulqadir Nur Osman ambaye nickname yake ni Professor Eno. Baada hiyo kuna wasomi wa vijana wa jamii hii walitoka Nairobi, walienda jana Buna, na wao wakasema wametoa mtu fulani. Kwa kweli sultan ndio na wazee wa konge wa jamii ndio, that's where the bus stops. Hiyo ndio wako na mandate, wazee na sultan na sultanati yake ndio wako na mandate ya kutoa mtu ama ya kuelekesha jamii, si wa vijana, si chairman ya kamati fulani. Kwa hivyo tunadhibitisha kwamba kile ilitendeka jana, hiyo ni kujaribu kugawanya kabila, hiyo ni upotevu. Maelekeo ni ile ya wazee na sultan na sultanate na candidate ni Emo, mbali si mwingine.